dadkii waa qabsatay arrin mucjiso leh. Arrinkaasoo ah mar walba ay ceelka dalowga ku ridaan, dalowgii waa laga furaa. Mana garanayaan cidda ka furaysa ee ceelka gudaha ugu jirta. Arrinkii ayay is weydiiyeen, sababkii waa la garan waayey. Waxaa laga maarmaan noqotay in ceelka qof gudaha uu u galo si uu u soo ogaado cidda ka furaysa. Dadkii ayaa arrinkaa ka wada baqay. Nin raggii ka mid ah ayaa oggolaaday inuu galo, laakiin hal shardi ayuu dhigtay. Shardiga wuxuu yahay, walaalkay ha joogo meesha aan ku galaya ceelka, si uu uga mid noqdo dadka xarigga leegu xirayo dhinac ka qabta. Dadkii ayaa la yaabay shardiga, sababtoo ah dhammaantood waa niman xooggan oo looma baahnaba xoog ahaan walaalka looma baahna. Laakiin ninkii ayaa arrinka ku adkaystay. Walaalkii ayaa yimid, kadib ceelkii ayuu galay. Markuu ceelka galay, wuxuu arkay daayeer gudaha ugu jiro. Isaga ayuu ahaa cidda furaysay dalowga. Daayeerkii ayuu soo qaaday, madax ayuu ku soo qaaday isagoo aan u sheegin. Dadkii ayaa xariggii jiiday. Markuu soo dhowaaday ayaa waxay arkeen daayeer soo socda. Saa dhammaan xariggii way sii daayeen, waxay is yiraahdeen jinkii weeyaba, ilaa walaalkii mooyaane. Walaalkii xariggii waa uu hayay oo isagoo u baqayay walaalkii. Dibadda ayuu keenay, markaa ayuu walaalkii ku booday. Haddaba walaalka waa laga maarmaan. Asxaab kastoo aad leedahay markaa shidada gashid, walaalka unbaa ku harayo. Sidaa darteed ayaa Ilaahay wuxuu yidhi, sanashuddu cadudaka biakhiika, garabkaaga waxaan ku xoojin doonaa walaalka. Haddaba walaalka ama walaasha cid walbaba ka hormari, hooyada iyo aabbaha kadib cid kaaga sokaysa ma jirto.